wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya mudane Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow oo qaar ka mid ah dalalka Afrika ee Soomaaliya deriska la shirar kala duwan uga soo qayb galay ayaa maanta dib ugu soo laabtay dalka. mudane Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow wasiirka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya ayaa ugu horeyntii ka hadlay kulamo magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia uu kula qaatay dhigiisa wasiirka warfaafinta dalkaasi Ethiopia kaasi heshiis dhinacyo badan taabanaya ay ku kala saxiideen halkaasi waxuuna faahfaahin ka bixiyay heshiiska ay wada gaareen labada dhinac. aniga iyo wasiirka warfaafinta dalka Ethiopia wada hadal dheer aan qaadanay wax badan ka wada hadalnay heshiiskan kala saxeexna markii dambe oo ka koobnaa ilaa 12 qodob heshiiskaas oo ay noqon doonto golaha wasiirada la geeyo kadibna baarlamaanka la marsiiyo diilaar heshiiskaas wuxuu ahaa in labada dal ay wada shaqeyntooda si horusi socoto in barnaamij oo jiro 6 bilba laba barnaamij la kala qaadanayo iyaguna ay TV-gooda raadiyooda halkan ay ka qaadanayaan anagana sidoo kale aan TV-ga raadiyooda laba program ka soo qaadan wadankooda kuwaas oo dhaqanka dhaqaalaha iyo arrimaha bulshada la isdhaafsan doono waxa kala jiri doona tababaro capacity building training la isdhaafsan doono labada wadan waxa kala jiri doona iyagana anagana warka toos waxaan u qaad doonaa news agency-gooda official-ka anagana waxay ka qaad doonaan wararka sona marka waxaan dhihi karaa wada shaqeyntoodna hadda aad u wanaagsan tahay sharcigaas doo hormar laga ansiyo baarlamaanka golaha wasiirada waxaan dhihi doonaa waxay noqon doontaa wax wanaagsan oo labada wadan wada shaqeyntooda si runtii hore sii socodsiyo. sidoo kale wasiirka warfaafinta Soomaaliya mudane Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow ayaa sheegay in booqasho ay ku tageen dalka Jamhuuriyadda Djibouti aynu walaalahanahay halkaas oo kula kulmay wasiirka warfaafinta wadankaasi Jamhuuriyadda Djibouti ayagoo ka wada arrinsaday horumarinta xafiiska warbaahinta qaranka Soomaaliyeed ee ku leedahay dalka Jamhuuriyadda Djibouti. wasiirka warfaafinta Djibouti aanu wada kulanay kulan dheer aan qaadanay barnaamijyadan ka wada waxaa kamid ah sidii Djibouti nooga caawilada waxyaabo fara badan wasaaradda warfaafinta ay u baahan tahay horena noo caawiyeen walaalahan Djibouti runtii iyagoo waliba arrimo gaar halkan u joogo ay kamid tahay in dalka ay cadawga ka xoreeyaan waxaana jiri doona shir dambe oo aan Djibouti u tagi doono oo aan madaxda wasaaradda qayb kamid ah wada doono kaasoo aan ka wada shaqeyn doono sidii studio loo dhisay Djibouti arintan aad ay soo dhaweeyeen gacan naga sii doonaan dilaaraha. ugu dambeyntii wasiirka warfaafinta Soomaaliya ayaa ugu baaqay warbaahinta Soomaaliya inay ka shaqeeyaan horumarka dalka isla mar ahaantaana wararka iyo barnaamijyada ay tabinayaan ay noqdaan kuwa ku qotoma maslaxada dadka iyo dalka Soomaaliyeed. runtii warbaahinta dalka aan runtii u baaqa inaan wada shaqeyn yeelano in laga shaqeeyo dalka Soomaaliya sida horumar loo gaarsiin lahay in laga wada shaqeeyo sida message wanaagsan ee dalka loo gudbin lahay qof kasta Soomaali meel baa ku sugan yahay dalka dadka u shaqeynaa in message-keeda la gudbiyo telefishinada raadiyaasha waa in la soo saaro waxyaabo wanaagsan oo horumarka dalka ka shaqeynaa waa in laga hortago wixii dalka burburinaa waxa kaloo si gaar u baaqa runtii barnaamijyada gobolada degmooyinka tuulooyinka meel kasta barnaamij fiican ka socda mid caafimaad ha noqdo mid waxbarasho ha noqdo mid kale horumar ha noqdo arrimaha bulshada in la soo gudbiyo oo arrimaha xasaasiyadda keena runtii laga fogaado qof Soomaaliya oo meel jooga oo hal cunug oo Soomaali sponsor gareeya hadii la helo waa in la soo gudbiyo idaacadaha la tuso barnaamijyada cadawada in laga fogaado runtii waxaan dhihi karaa miidiyo qayb weyn ka qaadan karaa dalka in cadawga laga xoreeyo. intaasi kadib ayaa wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya mudane Mustafa Sheekh Cali Dhuxulow waxa uu kormeer ku tagay raadiyaha iyo waliba telefishinka qaranka Soomaaliyeed waxaana sidoo kale ay booqdeen kaydka qaranka waxaana socdaalkiisa kormeerka ku weheliyay wasiir ku-xigeenka wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdullaahi Colaad Rooble agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya mudane Cabdirasaaq Cali Yuusuf Bahalaawi iyo qaar ka mid ah agaasimo waaxyada wasaaradda ayagoo u kuurgalayay sida ay u socdaan howlaha shaqo ee kala duwan ee ka socda xarumaha wasaaradda warfaafinta gaar ahaan dhinaca warbaahinta Soomaaliyeed. Cali Cabdulqaadir Cali telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.